kusoo dhawaada wasiirka films magacaygu waa wasiirka waa barashada luqadda Jarmalka fadlan kanaalka hadaa ku cusubtahay subscribe noo saar like noo saar sidoo kale video noo share garee mar walba waxa maqashaa laga yaabaa aadan ogeyn oo ku wareersan tahay ish waa maqashaa qof markuu iska hadlayo ish leeyahay ish waad maqashaa mish waa maqashaa mish waad maqashaa miya waa maqashaa saddexdaba isku macno ish waa aniga mish waa aniga miya waa aniga sidoo kale waxa jirto do waa adiga dish waa adiga dia waa adiga qofku waxa laga inuu dhaho anigu waa ku wareer waxaan see ku dhici kartaa waxaan saddexdan isku macno noqdaan saddexdan kalena isku macno noqdaan oo halkii shay laga wado adile laga wado markaana shal intaan shayna aniga laga wado see ku dhicta way dhici kartaa because jumlada waxay ku saleysantaa marka la fiirina ingiriiska oo kala fiirin Soomaaliga marka dhis qofka aniga adiga ku jeclahay adiga ma jeceshahay aniga mar walba aniga ma isbedelayso ma ahaan laakiin ingiriiska iyo luqadaha carabiga waa ka duwan ingiriiska fiirin marka leedahay qofka I love you marka leedahay qofku wax jecel adiga waa qofka soo horjeedo waa you hadaa bedelayna marka qofka objectiga wada qofka jecesha waa you way hadii aad aragtid object ina iska dhigtid oo qofka la jecel yahay adiga waa jecesha aniga ay noqonayso meesha data ahead I was bedelaysa objectiga waxay noqonaysaa me marka waxay noqonaysaa you love me okay marka waa ka dhacsanta because qofka marna aad wax jecel marna aad lagu jecel yahay marka shayga uu ku dhacayo qofka wax lagu sameeyna adiga aad tahay meeshii I ahead waxay noqonaysaa me marka aad iska hadlayso iska bilaabayso qof wax sameeyna adiga aad waxay noqonaysaa ay Jarmalka saas oo kala waa mar walba oo naftaada aad ka hadlaysid oo qof wax sameeynay qof wax yeelay adiga aad tahay ish waa fahmaysaa okay mish waxa isticmaalaysaa marka sida hadda aan ku sheega oo kala markii sheega qofka kale adiga oo kugu sameeynay sheega qof markuu adiga kugu sameeynay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay Jarmalka marka sheegaas la sameeynay ficilka ku xiran tahay hadii qaab dative tahay miya ay noqonaysaa miya hadii accusative tahay waxay noqonaysaa mish ficila jiro oo kooban waa inta ku soo qoraa oo la shaqeeyo dative-ka ajiro hadii ficilkan uu yahay mid dative ah uu yahay mish ma dhihaysid oo tusaalahan qof marka dhihaysid caawi oo kale helfen dative waa ficil ku shaqeeyo qaab dative ahaan aniga marka iska hadlay ish aan dhahayo dative ahaan waxay noqonaysaa miya hadii accusative uu yahay ficilkan oo ficil accusative ku shaqeeya marka aniga iska hadlaayo oo ish ay tahay laakiin anish aksi oo ani object aan iska dhigayo mish ay noqonaysaa miya ma noqonayso inta badan waxa maqashaa kan ish helfen dir kan ish dir helfen Jarmalka hadii aad jumlada haysatid laba verb aad haysatid laba ficil mid oo banaanka jiro mid kalena mid gudaha ku jiro mid kalena banaanka geesid waa hada ficilka eriga kan waa haysana eriga oo können waa haysana iyo waxa haysana helfen marka ina mid banaanka geestaa qasaba hada laba ficil haysatid hadii oo hal ficil bas isticmaalaysa helfen oo kale waxa dhici karta ish helfadia dish ma dhihaysid because erigan helfen ficilka helfen waa ficil oo dative ah waa ma fahanteen oo dative ah waa marka ish helfe dia eriga مثلا tusaale ahaan geben oo kale sismo geben ich gebe dir adaan ku siina marka do ma dhahay because marka adi aan ka bilaabayo oo isi adi aan ku dhahay markaas do-da waa nominative subjectiga waa ma fahanteen ish waa subjectiga hadii object aan iska dhigayo waa mish ama miya waxay ku xiran tahay accusative iyo dative waxaan isticmaalay adiga marka ka hadlay waa do aan kula hadlay do laakiin adigii marka object aan noqonaysid oo sheeg wax qof aan ku sameeyana adiga aad tahay waxay noqonaysaa dish ama dia waxay ku xiran tahay hadba ficilka isticmaalay inuu dative yahay inuu accusative yahay marka waa idin sheegay helfen waa ficil oo la shaqeeyo dative qofka ka soo horjeedo do
dative wuxuu noqonaa dia. marka maxaan dhahaa ich helfe dir. ama xataa hadda laba ficil aan isticmaalayo oo können aan keena maxaa leeyahay ich kann dir helfen. ich kann dir helfen. sababta loo yeelaa waxay tahay oo adi lagugu dambeysii waayey haddii laba ficil ah isjar marka mid waa inaa banaanka geysaa midna gudaha ku jira. giben oo kale waxaan leeyahay ich gebe dir. adigaan ku siinaya ama waan ku siin karaa waa awooda markaa le waxaa leeyahay ich kann dir geben. ich kann dir geben. laakiin tusaalaha marka aan soo qaadatid ii sheeg ficilkan acoustic soo qaadatid oo kale lieben soo qaadatid lieben ich liebe dich. يعني مثلا adiga ku jeclahay adi acoustic waxa tahay object aad tahay qof kale jeceliya adiga waa marka duum ku dhigi kara ich liebe du wiliga isku dheheen because laba nominative suurtagal maan ana nominative qofka iska bilaaba aniga waa ana ish waay marka adiga maadaama du aad tahay waxaan aan qofka ku sameeyna adiga aad tahay marka du ma dhihi kartid waa inaad tiraahdaa ich liebe dich. hadaa soo bedelay marka aad dhihisid qofka adiga aniga ijeceshahay qofka had wax lagu sameeyna la jeclaana adiga waay maxaa la verb kan waa verb accusative waa adiga ish marka accusative la joogo waxay noqonaysaa mich. dia mia ma ahan di waxay noqonaysaa mich. marka waxaa leedahay marka du liebst mich. du liebst mich. marka mich waa aniga waa objectigi waay accusative waay. du aan ku leeyahay nominative waa qofka waxa jecel adiga waay oo subjectiga adiga waay iyo ereyga ficilka oo jecelka du liebst mich ama ich liebe dich. marka waxa ina ogaatana muhiim ah du iyo dich iyo dia waa isku mid waa isla adiga laakiin waxay ku kala duwan yihiin oo ah midna waa nominative duga marna waa object marka aad noqonaysid waxa waa ii sheeg dich noqonaysa. hadii jumlada dative aan ay noqotana waxay noqonaysaa dia. marka waxaan jeclays marka inaa idin ogeysiyo in saas loo isticmaalayo laakiin isku wada mid yihiin oo ish ay noqonayso mishna aniga aan ahay mia ina anigana ahay ma fahant. okay inta badan waxa arkaysaa weydiinaysaa marka xafiisyada qofka waxa leedahay können Sie mir helfen. haddii xataa ay tahay ishak taas formal way da informal ka dhigaa saaxiibada ilaalinaysa waxa leedahay kannst du mir helfen bitte. kannst du mir helfen. kannst du mir helfen. mir sababta u dhaca waxa waaye because erey maxaa la ficilka oo helfen waa ficil dative oo dative kala shaqeeyo waay. marka ficilada waa idin soo dhigaa ficilada ogaada marka ficiladan mid kamid ah isticmaalaysid haddii dative uu yahay waa inaad hadaad adi iska bilaabaysid ish waay laakiin haddii adigii oo qofka kale oo qofka wax kugu sameynaa uu yahay waa inaad tiraahdaa miya mish ha isku dhigeen ma fahantay. wixii ficiladan ka soo haray inta kale marka waxay noqonaysaa mish. marka er waa jirtaa er waxay noqotaa markii nominative la joogo waa er kadib waxay noqotaa ii sheeg acoustic markii la joogo ihin haddii dative la joogo waxay noqonaysaa ihim. marka inaad ku furmaro bad dheer waay. haddii z ay ahayd tusaalahaan ayada ahayd acoustic waxay ahaanaysaa z la ahaanaysaa z isma bedesho laakiin markii dative la joogo waxay noqonaysaa iya. okay waxaan rabaa inaan dhaho ayada waa caawin karaa maxaa la marka ich kann ihr helfen. ich kann ihr helfen. ayada waa caawin karaa because ereyga idin sheeg ficilka helfen waa dative marka ayada marka dative waxay noqonaysaa ii sheeg iya. laakiin haddaan dhahayo ayada waa jeclaa markaan dhahayo waxaan marka ich liebe sie because z anasa marka r iyo z iyo s iyo maxaa la dhahay ii sheeg iyo iya oo idinka iyo v iyo z iyo kuwaas kale bad dheer waa inaad ku dheeree marabo video ina soo kooro marka labadana ugu muhiimsan oo ah adiga iyo aniga ugu muhiimsan. marka ish waa aniga waa nominative haddii xaalad accusative ay tahay oo adiga object aan noqonaysid oo aniga object aan noqonayo ishtu waxay isku bedelaysaa mish. haddii waxa la isticmaalayo ficil oo dative uu yahay waa iska fiirna waxa leeyahay miya. haddii qofka ka soo horjeedana waa du nominative-ka accusative wuxuu noqonaa dish qofka markuu object noqonayo waaye dish aan leeyahay. haddii oo qaab dative ay tahay dative aan isticmaalayo ficil dative aan isticmaalayn waa iska fiirna waxa leeyahay dia. kali marka waxaan jeclaystay video inaan idinku ogeysiyo ish inay la mid tahay mish sidoo kale inay la mid tahay miya sidoo kale du inay la mid tahay dish inay la mid tahay dia.
keli waxay ku kala duwan yihiin marna waa nominative marna waa accusative marna waa dative marka subscribe haliga iloobin like tan haliga iloobin video hal si share gareeyo oo wasiirku idinka taasay nabadgeliyo mac salaama bye bye